marka waa group gaankiisoo isku xiran waay haye waa gaans isku xiran gabdho ah way soo shaqaysay way soo shaqaysana marka anigu waa la xumee ninkaneetu wuu dhacay anigu maraykankiimi wax badan shaqaystay Kenya waxay imaaday inaan maalgelin iyo business samaysto ninkaneetu wuu gaaday lugteedi buu iga jebiyey wuu dhacay $18,000 buu iga qaatay wuu dhacay waa dhacsanay maraykan markaan soo laabtay caafimaad baan maray qalitaan baan galay marka wax dhan waxaa keena ninkan Axmed Rashiid waxaa difaacayo nimankan ogaadeenka waa in la iska ilaaliyo ogaadeenta dhan oo Nairobi jooga ayaa sabab ah waxa dadka Soomaalida la dhibaayo Soomaali dhan oo isli ku nool yihiin oo la dhibaateynayo ninkan dhan dhibaayo oo Axmed Rashiid ah waxaa sabab keenayo waa nimankan ogaadeenka oo joogo Nairobi isli marka Axmed Rashiid waa gardarro garab og tolkiisa dulmiga raalli kaga ah in ummadda Soomaaliyeed dhibaateeyo xagga ganacsatada iyo dadka kale ee qaxootiga ah ee Nairobi ku nool soo ula tacaamulaa ninkan Axmed Rashiid ma baad bay siiyaan ma asay u ruufiyaanaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأدين سلام يا سومالية ميل بجوكتان waxaan rabaa in aan ka hadlo dad baryahan dambe caadaystay in ay qabiilada Soomaaliyeed ee sharafta leh ee wada nool meel walba oo Soomaaliya ka mid ah ama banaanka Soomaaliya ka mid ah raba in ay madaxa isu geliyaan oo sharaf iyo wanaag iyo fiicni iyo alla ka cabsi aan dan ka lahayn ninkaas hadda aad arkayseen ninka waraysanaya waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali wuxuu ku soo galaa Facebooka difaac qaran anigu waan fiirsaday in badan baan wararkiisa aan arkayay wuxuu aad u difaacaa dawladda Soomaaliya which anagoo dhan aan jecelnahay dawladda Soomaaliya isagu laakiin difaaciisa waxaad moodaa in uu yahay difaac oo xad dhaaf ah 24 hours wuxuu fadhiyaa Facebook wuxuu ku difaacaa dawladda we have no idea cidda mishaarka siisa iyo cidda u shaqeeyo laakiin waxaan ognahay inuu Facebook u fadhiyo arrinka marka hadda iga hadalsiinaysa waxaa weeye ninkan qabiil Soomaaliyeed ayuu soo qaatay oo karbaashka la dhacay oo uu leeyahay madaxdoodii culimadoodii dad dhan oo wadan degan way ku raacsan yihiin hal nin oo askari ah oo dawladda Kenya u shaqeeya meeshaas wuxuu ka hadlayaa 1 saac iyo 22 daqiiqo waxaa ninka uu wareysanayo uu ku bilaabay wareysigiisa ninkan Kenya tagay dalxiis buu tagay ninka wareysigiisa waxa ku jirta ninka inuusan Kenya dalxiis u tagin ee ganacsi u tagay that means ninkan journalist ma aha oo ma yaqaan the ethics of journalism ma yaqaano hadduu garanayo wuxuu sameyn lahaa his homework isagoo garanaya qofka uu wareysanayo iyo ujeedka uu ka wareysanayo uu meesha soo fariisan lahaa laakiin markuu uu wareysay wuxuu yiri waxaan wareysanayaa ninkaas oo dalxiis u tagay Kenya oo dhibaato ninka uu ku sameeyay I have no problem ana qof binaadana in wax laga sheego ama la dhaliilo laakiin the social media waxaan rabnaa in loo isticmaalo si responsible because qofka journalist waxa laga rabaa inuu noqdo ruuxa hadlaya ee dadka wareysanaya ee ummadda u bandhigaya warka inuu noqdo ruux warkiisa la qabsan karo ummadana aan meel kaga dhacaynin oo ku xadgudbeynin clipkan waxa ku jira meelo fara badan oo ogaadeen wax laga sheegayo culimadiisa madaxdiisa ahlu sharafkiisa ninka la wareysanayo wuxuu leeyahay as a whole community ogaadeen la dhaho iska ilaaliyo and that is waxa aan rabno inaan ka digno in English ama wadamada reer galbeedka waxa loo yaqaanaa hate crime qofka markuu target gareeyo qabiil iyo diin labada arrin waa very important iyo color qofka colorkiisood ku target gareyso qabiilkiisood ku eedeysood ku target gareyso iyo diintiisu qofka aad ku target gareyso saddexda arrinba waa very dangerous laakiin dadka saano kale iska hadla
media intay soo fariistaan qabaa'ilo dhan jaa-ifeynaya ama mediyihii marka aniga aan soo fariisto oo facebookayga laga daawanayo qofkii khaladka galay aan laga qabanin oo warsaa ha dhihin saas ma aha laakiin cabo ka hadal waxaad ka complain garaynayso laakiin ha jaa-ifeynin hana ku xadgudbin dadka ruuxa ilaa maxkamad la saaro oo lagu caddeeyo dembiga uu galay lama dhihi karo ruuxaas waa dembiile maxamed cali annagu waan taageersanayn waa nin hadla oo soomaalida iyo soomaalinimada iyo dowladda u hadla laakiin waxaad moodaa isaga iyo rag la midaba inay beryaan la soo baxeen kaar qabiil oo ay leeyihiin qabiil hebel iyo qabiil hebel iyo qabiil hebel waa saas and that is unacceptable intaa yar baan rabinaa idinla wadaago waad mahadsantihiin soomaaliya meel walba joogtaan aan diidno qabiilka iyo qabyaaladda aan u doodno sida fiican ama journalismka wax loogu soo gudbin karo ama wanaagga iyo ummadda soomaaliyeed inay isu soo jiidato wax wada qabsato wixii xunna ay ka hadasho iyadoo asluubaysan oo sharafaysan laakiin dad intay iska soo fariistaan idaacadaha oon maanta o dhan qabiil caayaya oo ree hebel caayaya oo dadkaas waxay naga hadlaynayaan caruurta yaryar ee soo koraysa mentalitigooda iyo aqligooda bay naga wasaqaynayaan marka soomaaliya aan meel loogu soo wada jeesano ninkaana waxaan ka rabnaa an apology inuu apologize gareeyo qabiilada uu ku xadgudbay uu intuu soo fariista kamerada horteeda u dhaho waan ku xadgudbay reerkaas inaan waxaa ka sheegana ma ahayn hadduusan asaga afkiisa ka dhihina ninka uu wareysanaya afkiisa ka yiri oon rabnaa apology inuu ka bixiyo thank you very much nin walba oo qabiil soomaaliyeed caayana waan qabsanaynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu